dalka waqooyiga Kuuriya waxaa ka mamnuuc ah inaad ku labisato surwaalka jeeniska ee midabkiisu buluug yahay sidoo kale haddaad ajnabi tahay ma isticmaali kartid lacagta dalkaas kaliya waxaad wax ku iibsanaysaa lacagaha qalaad sidoo kale ma iibsan kartid baabuur haddaadan ogolaansho ka haysan dawladda dhammaan waxyaabahani waa kuwa ku cajab gelinaya markaad ku sugan tahay dalka waqooyiga Kuuriya waxaana maanta ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena xulashada dunida 20 waxyaabood oo ay waajib tahay inaad ka feejignaato ka hor inta aadan u safrin dalkaasi waqooyiga Kuuriya. Lambar 1 waxaa mamnuuc ah inaad xidhato jeeniska buluuga ah haddii aad awoodid inaad iibsan karto surwaalka nooca jeeniska waad ku xidhan kartaa gudaha Kuuriyada waqooyi laakiin marada jeeniska waa in midabkeedu noqdaa madow sababtoo ah jeeniska buluuga ah waa ka mamnuuc waqooyiga Kuuriya. Lambarka 2 dalka waqooyiga Kuuriya waxaa ku dhex yaala 3 kanaal ama 3 TV oo kaliya waana inaad 3daas kanaal midkood daawataa sababtoo ah ma jirto kuwa kale oo aad dooratid. Laba ka mid ah kanaaladan waxaa barnaamijyadu ka baxaan kaliya maalmaha fasaxa ah halka kan kalena wararka laga sii daayo marka la gaaro fiidkii sababtaas awgeed daawashada musalsalada oo qura oo cajalada ah ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee si qarsoodi ah loo soo geliyo dalkaasi maxaa yeelay wax kasta oo ka baxa kanaalka waxaa gacanta ku haya dawladda. Dadka Kuuriyada waqooyi sidoo kale looma ogola inay dhageystaan muusiga reer galbeedka ilaa waa haddii aysan heestu ahayn hees lagu ammaanayo Kim Jong Un. Lambarka 3 ma jiro adeeg internet oo caalami ah ama wifi waqooyiga Kuuriya ma laha adeeg internet oo caalami ah balse baraha laga daalacdo internetka waa kuwa ay kulli dawladdu maamusho. Adeegaas internet oo loo yaqaano Kwangyon waa internet dhammaan mareegaha caalamka ee wararka iyo filimada iyo baraha bulshada oo dhan uu ka xiran yahay oo haddii aadan ahayn qof xil sare haya weligaa laguma ogolaan doono inaad isticmaasho adeega. Sidoo kale nidaamka cusub ee lagu yeero Red Star nuqulkiisii ugu dambeeyay waxaa loo qaabeeyay sida nidaamka Mac OS X oo kamid ah kuwa shirkadda Apple ay soo saarto waxayna shirkaddii soo saartay nidaamka Red Star ay sheegtay in loo sameeyay jacaylka uu Kim Jong Un jecel yahay qalabka shirkadda Apple awgeed. Khadka wifi-gana lagama isticmaalo dalkaasi. Moobilada gacanta ee ay dadka farakotiriska ay haystaan oo ku xiriirsan adeega Kwangyon waxaa u soo saara Shiinaha mana laha wifi ama adeeg Bluetooth. Nambarka 4 dalxiisayaasha looma ogola inay isticmaalaan lacagta dalka gudaha laga dhex isticmaalo oo dukaamada marka uu qofku wax ka iibsanayo wuxuu ku bixin karaa lacagta euro, yuans, won iyo xitaa dollarka Mareykanka. Waana mamnuuc in qof ajnabi ah uu wax ka iibsado dukaamada Kuuriyaanka ee gudaha dalkaasi. Waxaa intaa dheer ajaanibku waa mamnuuc xitaa inay galaan dukaamadaasi baliya og sababtaasi. Lambarka 5 in lagu dhex wato kutubka sida Bible-ka waa sharci darro. Maamulka Kuuriyada waqooyi hadda ka hor ayuu haweeney Kristan ah ku eedeeyay inay faafinaysay diintaasi iyadoo wadata kitaabka Bible-ka ah taas oo goob fagaare ah xukun toogasho ah loogu fuliyay dambigaas awgiis. Kuuriyada waqooyi ayaa intaa kadib ka mamnuucday qof kasta inuu diin ku faafiyo ama uu qaato diinta oo uu rumeeyo Ilaahay. Kuuriyada waqooyi diimaha ma xurmayso waxayna hadda ka hor leysay kumanaan qof. Lambar 6 ma wici kartid dibadda adigoo isticmaalaya SIM card haddii aad joogtid waqooyiga Kuuriya hadda waxaana taa ka sii daran muwaadiniinta looma ogola inay wacaan dibadda ama xitaa ajaanibka dhex jooga waqooyiga Kuuriya. Dhammaan SIM cardada dalka waxaa u furan oo kaliya khadadka gudaha ee dalka oo kaliya. Lambarka 7 haddii aad u baahan tahay inaad timaha iska jarto iska hubi inaad doorato mid ka mid ah 28 qaab oo kaliya oo ay dawladdu ogashahay. Dawladda Kuuriyada waqooyi ayaa 28 qaab oo timo jaris ah ay dhammaan ragga iyo dumarka dalkaasi ay ku khasban yihiin inay raacaan. Timaha fooda leh ee dhalinyaradu u jarato ayaa si gaar ah loo mamnuucay sababtoo ah dawladdu waxay u aragtaa inuu yahay qaabka kooxaha fallaagada ah u jartaan. Sharcigan ayaa waxaa keenay hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un sanadkii 2013 balse kuma uusan darin qaabka u gaarka ah ee isagu tinta u jarto sababtoo ah wuxuu rabay inuu muuqaalkiisa dadka uu ka duwanaado. Lambarka 8 way adag tahay inaad gaari iibsato waqooyiga Kuuriya dhexdeeda waxaad u baahan tahay ogolaanshaha dhanka dawladda ah. Qiimaha baabuurku wuxuu noqonayaa mid aad u qaali ah xataa baaskiilku maaha mid la awoodi karo oo marar dhif ah ayaa lagu arkaa meelo ka baxsan magaalada Pyongyang. Dhammaan baaskiiladuna waxay leeyihiin taariko sida baabuurta
lambar 9 cabista Coca-Coladu waa ka mamnuuc dalkaasi waqooyiga Kuuriya. Waqooyiga Kuuriya weligeed taageero uma noqon shirkadaha caanka ah ee soo saara cabitaanada dalka dibadda ka ah, gaar ahaan kuwa Mareykanka oo saameyn ku yeelan kara dhaqaalahooda. Waxaase hadda ka hor waliba sanadkii 2015 jiray laba wadan oo kaliya oo adduunka ah oo laga mamnuucay sharaabka Coca-Colada ah. Dalalkaasina waa Kuuba iyo waqooyiga Kuuriya. balse markii sharaabkan aakhirkii loo ogolaaday in lagu iibiyo Kuuba Kuuriyada waqooyi, waxay noqotay wadanka kaliya ee haray ee aan laga helayn sharaabka Coca-Colada dukaamadeeda. lambar 10 ajaanibka looma ogola inay sawir qaadaan ama xataa la hadlaan dadka muwaadiniinta ah iyagoo aan haysan ogolaanshiyo gaar ah. Inkastoo sida loo badinayo muwaadinka Kuuriyaanka ah aan lagu xiri karin ama lagu dili karin haddii uu la hadlo qof ajnabi ah, balse haddii uu qof dalxiis ah isku dayo inuu la hadlo qof Kuuriyaan ah ama uu sawir ka qaado, waxay u badan tahay inay ka carari doonaan cabsi ay ka qabaan dawladda awgeed. lambar 11 cuntada fudud sida McDonald's lagama helo waqooyiga Kuuriya, waa ka mamnuuc loogamana ganacsan karo halkaasi. waxaa taa bedelay oo wadooyinka waaweyn ee dalkaasi lagu gadaa cunto dhaqameedka caanka ah ee waqooyiga Kuuriya, taasoo basbaasku ku badan yahay. 12 muwaadinka Kuuriyada waqooyi u dhashay ma iibsan karo tigir diyaaradeed oo dibadda ah, umana duuli karo dal kale hadday helaan fasax. ma aha sababtaas tigirka oo qaali ah, balse gebi ahaanba waa mamnuuc. xayiraadaha safarka ayaa sidoo kale lagu dabaqaa gudaha dalka. si aad u booqato qaraabadaada ku sugan magaalo kale ama tuulo, waa inaad ogolaanshiyo heshaa. lambar 13 wargeysyadii hore ee dalka dhowr sano ka hor haddii aad raadiso ma helaysid. suurtagal maaha inaad hesho wargeys dhowr sano ka hor ka soo baxay matbacadda. taasina waxaa ugu wacan xisbiga shaqaalaha ee Kuuriyada oo markii uu doono bedela sidoo doono ayuuna u qoraa. dabcan wargeysyada shisheeye iyagu doodi kama taagna oo dalka oo dhan waa ka mamnuuc, balse wargeysyada maalinlaha ah ayaa sida caadiga ah lagu soo bandhigaa gudaha xarumaha u gaarka ah ee wadooyinka iyo xarumaha tareenada, loomana baahna in la iibsado oo waa bilaash. 14 hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi wuxuu jecel yahay kubadda kolayga, sidaas darteed wuxuu soo saaray xeer kubadda kolayga ah oo u gaara dalkaasi waqooyiga Kuuriya, waxayna gebi ahaanba bedeleen xeerarka ciyaartan oo dhan. lambar 15 kuma jiraan biyo kulul guryaha Kuuriyada waqooyi, sidaas darteed kuma qubaysan kartid haddii aad u baahato biyo diiran. haddiise aad ka maarmi weydo inaad biyo diiran isticmaasho, waxaa daruuri ah inaad dabka saarato oo aad ku diiriso. arrintan dadku waa u siman yihiin, waxaana ugu wacan oo waqooyiga Kuuriya ka jirta oo ay dhibaato ku qabaan korontada. lambar 16 muwaadinka lagu qabto isagoo dhaliilaya ama ka hadlaya dawladda Kuuriyada waqooyi waxaa loo diraa xeryaha dhaqan celinta, waxaana maxaabiista loo diraa shaqooyin adag. sidoo kale waxaa dib loo baraa afkaarta nidaamka si ay ugu hoggaansamaan. lambar 17 ma iibsan kartid hantida maguurtada ah ee ku taala Kuuriyada waqooyi. guryaha ku yaala Kuuriyada waqooyi iib uma aha muwaadinka, waxaana qaybiya dawladda. qofku xitaa ma dooran karo inuu ka guuro baadiyaha una guuro caasimadda Pyongyang, oo tan waxaa kali ah oo la siiyaa marka qofkaas la sharfayo. balse haddii aad suuqa madow dhex gashid, waxaa laga yaabaa inaad guri dabaq ah ku iibsatid lacag qiimaheedu u dhaxeeyo $70,000 ilaa $90,000 oo dollar oo Mareykan ah. lambar 18 dawladda Kuuriyada waqooyi ma jecla in loogu yeedho magaca dalka Kuuriyada waqooyi, oo waxay taa bedelkeeda door bidaan oo rabaan in loogu yeedho Kuuriyada oo kaliya. 19 qof kasta waa inuu sharfo hogaamiyaha. inta badan ama dhammaan kooxaha dalxiisayaasha waxaa laga codsadaa inay si xushmad leh ugu sujuudaan oo ay u baxdhigaan 1 ama 2 jeer taalooyinka hortiisa ee qoyska Kim Jong-un iyo Son marka ay booqanayaan goobahaas muhiimka u ah qarankooda. waa faldambiye Kuuriyada waqooyi haddii aad ixtiraam darro aad u muujiso qoyska Kim Jong-un. dadka ku xadgudba shuruucdaasna xataa iyagoon ogeyn waa laga eriyaa dalka ama waa la xidhaa. lambar 20 lama soo geli kartid Kuuriyada waqooyi alaab aan la ogolayn. dhammaan waa laga reebayaa kaamarada, filimada iyo buugaagta sida kuwa maapka leh, balse markaad dhamaysato safarkaaga ayaa dib lagu siin doonaa. waa barnaamijkeennii xulashada dunida oo aad kala socoteen Horfadhi Media.